madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo reer Soomaaliland u sheegay danta ay Israa'iil ka leedahay ee u ictiraaftay iyo shirqoolka ay la damacsan tahay tiyo 34 sano ee la soo dhaafay inay ictiraaftay iska daayay aysan soo hadal qaadin wax xiriirana aysan la soo sameyn qodbad uu xalay jeediyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu uga hadlay qodobo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda ka taagan wadanka qodobo dhowr ah ayuu xusay hadalkiisina waxa kamid ahaa hadalkan uu dadka reer Soomaaliland madaxda iyo shacabka uu kula hadlayo bal wax yar la dhageyso shacabka goboladaas ku nool waxaan u sheegayaa waxa la doonayaa in deegaanadiina laga dhigo saldhigyo looga duulo dalal kale lagana horiyo colaado iyo dagaalo aydan idinku qayb ka ahayn danna aanay idinkugu jirin walaal bal fakar Israa'iil daris maahin dana dhaqaale nagama dhaxeeyaan dhaqan nagama dhaxeeyo diin iyo hab nololeed nagama dhaxeeyo weligeena nama dhaxmarin waa maxay sababta ay ula soo booday ixtiraaf beenaadka maanta ay dadka ku dheer la xawsanayso xagee jirto 34 sano ee la soo dhaafay walaalayaal walaalka Soomaaliyeed ee waqooyiga ku noolow yaan lagu seexin in lagu yiraa danaha Israa'iil ee la sheegayo waxba kama jiraan waa dhab laakiin ogow maanta ayaad fursad aad ku diido haysataa ee bari yaynan ku calaacalin inaysaan wax noqonayaan ma ogeyn dhibkana lala damacsan yahay waa dhab ee yowsan dheelalaw nagu gelin walaalayaal dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibadeeda caalamka waxay qaadaysaa tallaabooyin looga hortagayo xadgudubka Israa'iil haddii dadka Soomaaliyeed ay la seexan waayeen waxa Netanyahu ku sameeyay shacabka reer Falastiin iyo dadka reer Gaza ma filayo in shacabka Hargeysa ay aqbalayaan in looga alalaaso dalkeena taliskaas ku caanbaxay xasuuqa shacabka masaakiinta ah bari inuu annaga xasuuqana wax diidaya ma jiraan okay hadalkan dabcan waad dhageysat jumlada hadalkan badankeed waxa ay ku socotaa reer Soomaaliland oo madaxweynuhu kula hadlay waxa uu sheegay in la damacsan yahay oo Israa'iil ay damacsan tahay in Soomaaliland saldhigyo ay ka samaysato kadibna dalal kale looga duulo oo laga weeraro dalalkaas kale yaa waay marka yihiin wadamadaas laga duulayo hadii laga duulana maxaa dhici kara waxa uu yiri waxa la rabaa in la idin geliyo colaad adinku inaan qayb ka ahayn laakiin ka dhacaysa gurigiina waa dagaal ka dhacaya gurigiina adinkuna inaan waxba ka qaban karin qaybna inaan ka ahayn Israa'iil Soomaaliland xuduud lama wadaagto daris ma ahan dana kale oo dhaqaale kama dhaxeeyaan af iyo diini kama dhaxayso wax ka dhaxeeya haba yaraatay ma jirto dhowr iyo 30 sano oo Soomaaliland ay ictiraaf raadinaysay maalin qura ma aysan ictiraafin xagoodana soo ma eegin maanta sababta keentay in ay yiraahdaan waa ictiraafayna hal sabab oo ay ka leeyihiin darteed bay maaragtay oo ictiraafayaan wargelin muhiima ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaaga soo cimreeyo bisha Rajab oo kamid ah bilaha xurmada leh wax ka yar $300 ayaa lagaaga soo cimreynaya waalidkaaga waxaana fursadan kaaga faa'iideynaysaa shirkadda Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran waxa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaas dheer nagala soo xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda shirkadda xajka iyo cimrada ee Taqwa Xaj and Umrah ku dooro alla ka cabsi ammaano iyo adeeg hufan hal sabab oo ay ka leeyihiin darteed bay maaragtay oo ictiraafayaan waana sababta ah in ay dagaal iyagu aysan qayb ka ahayn ay geliyaan indhihii ku sii jeeday Israa'iil dhulka ay xoog ku haysatana ay ka soo jeediyaan ictiraafkaasna waxa ay uga bedelatay oo Soomaaliland laga rabay si cad Soomaaliland uma aysan cadeyn laakiin Israa'iil waxa ay sheegeen in saldhigyo halkaas ay ka samaysan doonaan waliba hadda xitaa ay si samaysteen difaaciyana ay si dhigteen okay sidoo kale qaxooti Falastiin ah in la soo rarayo oo la keenayo Soomaaliland ayaa la sheegay wadamada looga duuli raba halkaas waxa kamid ah Yemen oo dhowr boqol kiiloomitir u jirta Soomaaliland waxa la rabaa wadamadan ay Masar iyo Iiraan iyo Sacuudiga ay kamid yihiin in loo fariisto maaragtay gacanka berbera in loo fariisto la rabaa sababta iyo danta ugu weyn laga leeyahay waa ka tusaale hadii Yemen la weeraro oo weerar lagu qaado xoutiyiinta diyaarada ka kacaya saldhig ku yaala berbera ama ganta laga soo tuuray berberana oo halkaas ku dhaco maxaa la filan karaa dabcan xoutiyiintu waxa ay haystaan in ay jawaab degdeg ah bixiyaan weerarkii xoutiyiintu ay Israa'iil ku qaadi jireen ee intay Sacuudiga gantaala dul marsiyaan oo Jordan si dul marsiyaan ay halkaas kaga dhufan jireen baa waxa la rabaa in la soo wareejiyo gantaalihii iyo colaadii halkaasi maaragtay lagu weerari jiray
kadibna loo soo wareejiyo dhanka iyo berbere iyo hargeysa loo soo wareejiyo si caadi ah hal gantaal hadduu ku dhaco xuutiga gantaalka labaad wuxuu ku dhacayaa meeshii uu ka yimid marka wuxuu ka wadaa madaxweynuhu colaad adinku inaan qayb ka ahayn baa la idin gelinayaa gantaalaha ka imaanaya xuutiga iskama difaaci kartaan qalab aad isaga difaacdaan ma haysataan haddii iyagu ay keenayaan oo ay haystaan qalab ay isaga difaaci karaan gantaalo dhow oo dhowr boqol oo kilomitir ah oo lagu soo rida haddii ay qaban karaan oo ay iska difaaci karaan 2,000 iyo dhowr boqol oo kilomitir ay isku jiraan meesha xuutiga uu ka soo rido gantaalaha iyo Talaabiib maxay u celin waayeen gantaal 2,000 oo kilomitir soo socday qalabkoodii saxagu aaday ma qalab ka fiican midka ay dadkooda iyo dawladooda iyo dhulka maaragtay ilaahay kuma samadiiday xooga ku haysa ay ku waardiyeysanayaan qalab ka fiican miya berbere iyo hargeysa soo dhigayaan maya ma soo dhigayaan dabcan laakiin waxa la rabaa in dhii xagga ku jeeday iyo weeraradii yuhuudda ku jeeday in xaggan loo soo jeediyo marka hadalka madaxweynuhu waxa uu daarnaa war hadda diidi kartaan oo aad dhihi kartaan naga daaya oo naga jooga hadda dhihi kartaan laakiin hadhowtii markay midiyo uusku tagto ma dhihi kartaan sidan ma u maleynayn waxaan dhibaatadan ma u maleynayn marka dhul nabad iska aha dhowr iyo 30 sano nabad aha jawigiisu iska deganaa dadkiisu shaqaaqa iyo dhib aan arki jirin marka madaafiic lagu soo tuuro oo joogto looga dhigo waxa imaanaysa dadkii muhiimka ah in meesha ka baxaan oo ay kala cararaan dadkii wadanka la jaclada ku joogay dadkii hantida ku lahaa dadkii ilaahay kuma samdiday inay meeshii ka ordaan baa dhici karta taasina waxa ay bilow u tahay bahdilka iyo sharaf dhaca deegaanka dadkii muhiimka u ahaa inay ka tagaan okay dadka dhahaya maxaana lagu ceebeynaya in Israa'iil aan xiriir la yeelano ma waxa weeye diinka baxmiya diinta miya diidaysa in aan xiriir la yeelano saxaabadii iyo sidoo kale nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa xiriir la yeelan jiray dhahaya su'aashan ayaa jawaab uga baahan heshiiskan Abraham Accord waxa weeye accepting and respecting Israel while refusing Palestinians wa inaad ixtiraamto oo aad aqbasho jiritaanka Israa'iil refusing Palestinians wa inaad diido Palestine wa inaad diido al-qadiyya al-Falastiniya ilaahay wuxuu yiri muslimka la xiriir gaalkana go Abrahamic Code wuxuu ka dhigan yahay yuhuud la xiriir Falastiin go oo cad oo halka kugu tal heshiiska la wada galay ee Soomaaliland iyo Israa'iil ay wada galeen sida wadaadkan uu sheegayo waxa uu qorayaa in Israa'iil daraheeda iyo wax kasto ay tahay la ixtiraafo Falastiin la diido oo la dafiro la inkiro sidaas ayuu heshiisku dhigayaa okay maanta adigu qof muslim ah tahay islaam qofka muslimka ah inaad qof gaal ah ka soo dhaweysato adigoo ka ogolaanaya gaalkii in maaragtay aad xigsato ka ogolaanaya yay tahay diinta ku sheegtay oo ku dhigaysayta Falastiin inaad inkirto waxay ka dhigan tahay inaad inkirtay goobihii barakeysnaa ee Falastiin ku yaalay Baytul Maqdis inaad inkirtay ka dhigan tahay sababtoo dadka muslimiinta inaad diido macnaheedu waxa weeye xuquuqda dadka muslimiinta ay kugu leeyihiin ayuuna dhulkaasi barakeysan kugu leeyahay in la qabsado ayad u ogolaatay in waxa weeye wixii raba laga sameeyo u ogolaatay تعديدي فلسطين iyo dadka muslimiinta loo geystay inaad maaragtay iska indhatirtaad ogolaatay waaka marka al-umum gunaanadka sheekada iyo hadalka madaxweynaha iyo waxan waxa isugu imaanayaan waxa weeye colaad adinka ayna shaqo ku lahayn ayaa la idin gelinayaa hadda se waxa ay dantu tahay oo idin haboon inaad tiraahdaan arintan waa iska mooseynaa oo mana dul qaadan karna mana rabna inaad tiraahdaan inta way hadalku aad baad mahadsantahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh As-Sunna Islamic Online waxa ugu bashaareenayaa ardayda qurba joogta inay ka baran karaan Qur'aanka Kariimka higaada axaadiista ducooyinka iyo barbaarinta ubadka hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda